وحوي إنه ساوي شوقنا أيام ما أنت لا دورتي إنا يروه عيل قبه محل دورتي موسى خلاف كي يو اس سي غير مقدشة اسكو حمادي أي سي كاير كوبي لواتن مال مدمولة شوقي كوبي لواتن مال waxaan la yaabsaneen waxaan leeyahay maxamed siyaad bare nin baa igu yiri haddaanan joogin buu igu yiri halkii uu lahaa reer sheekh saaq hala tirtiro hala dabargooyo ma rumaysteen oo ismaana qof Soomaali oo oday Soomaali ka suurta gasha laakiin ilaahay uu joojo shirkan ku jiray buu yiri wanaga ka suurta gashay inuu diyaaradan la dhaco kana maxaa ka suurta galay waxa ka suurta gashay inuu soo cadow u dhiibo nin Soomaaliyeed qabla dhagax ayuu cadow u dhiibay qof kale ka suurta gasha waxa ka suurta gashay inuu afar dekadood oo Soomaaliyeed ahay shisheeye u saxeexo inagu shipping line-ka Ethiopian shipping line-ka ayaa 6% la siinay percentage oo waa baahi mushtari si ay alaabta حاجة أوصل كيسنا تيبنو كأمن هلوين حبشاي سيانا وجوز أفرد كذا بقرة وحن سميه وأنا أنتم بينما تجي شن يتوما كندي دلي وأنا كدلي لحنين أو نحد معنا ولا عبد الرحمن شكور أنتم ويرري لحدي جاركي سمدلي كاس وكام ما أنت دور شيء سوتشت دور شلا هرجع جرت قال إنك إنك سعودات تجي كوي نجد تجي أيو كاش كريسة dadkii ma yiraan naga soo gaara nimankii tiiban gurmade arinta Soomaaliya marka doorasho jirto Djibouti ku jirta Djibouti waxa ku jirta Ethiopia waxa ku jirta Kenya waxa ku jirta Mareykan cid kala dambe ka leedahay wixii halka ka soo baxana inaga ugu saameyn weeyahay inaga halka yooruna haddaynu gacan ku yeelan kan iyo qaar ka xubaa iman doona oo barnaamijkiisu yahay Somaliland si loo baabiyo tii baan ka hor tagnay shir baan ka qayb galnay waa beelo shir beeleed baan ka qayb galnay dirka la ilaa dirka joon iyo jamaacid waa jiroon si aan waxa iska moosno 75 cod bay leeyihiin 5 cod ka aan ilaa qofkii khayr qaba ee waddanka u footeeya shaqadii dawladda mu qabano 2 week baan ku maqnaa iska daba qaaday Nairobi iyo Imaaraadka maanta waxa la ii sheegay kii aan shaqadiisa hayay wasiirkii daaqiliga shaqadiisii baan hayay ayaanay naqdi soo Faysal Ali Waraabe ayaa shirkir ka qayb galay Soomaaliya ku burburi maysee Soomaaliland hoggaan xumo ku burburisa hoggaan xumo ayaa ku burburisa hebel baa shir tagay Soomaaliya ku soo difaaciyo ku burburi mayso waxa ku burburisa waliyaa maanta dalka xukuumaya gacanta leh sidii goreedii haddaan madax ciil gashataan socon mayso walaalayaal inta lagu soo tashaniyo oo mar yururista waa inaad adu weerarka waxa la weerarka u fiican waa inaad ka horeysa weerarka waan weerarina insha Allah taala gacan baan ku yeelanina insha Allah taala qof iyagana u wanaagsan inagana aan inuga heen cadow oo si fiican u kala baxno ayaan insha Allah ka shaqeyn halkaas oo baxay insha Allah taala saan ugu ogaad US way noo hiilisay maantana waan u hiilinina iyaga maanta waa la haysaa waa u hiilinina abaalkii baan ka gelinaa meeshii loo jiray banaadir ayaa kayle iska leeyahay noqotay inanta la kubsada waa iyaga lacagta la cunaa waa iyaga dekada cunaa waa iyaga kala xidha waa iyaga waa u gurmanina inay dulmiga iska qaadaan waa idin gurmanina reer banaadir iyo Soomaaliya oo dhan galigeedaba oo gurmanina insha Allah taala laano waa dariskaygu marka way كاين واحد لا يهاي ورنا أمانك داخلية دوية أمانك داخلية كو أنا واحد من السياسي يحطوا مضحى سياسة دينا حربان وهاي يعني واحد ولا هاي وأنا كيل على إن يدل كم إن يويوت السمينه ما كان رجع سعر مو السودان واحد نكوك السودان إن دور الشمال قبلنا كهول قالله شيء أنا إسكعلينه
khilaafkii gudaha iyaga aan joojino ilaa waxaanu gaadhayna leeyahay waa labadii guddoomiye waa la iibsado waxay la saaxiibeen muuse saasaa lana leeyahay waanama war markaanu ka daynay aan la shaqaynay aan tiisi ogolaanay doorasho inuu dhacdo haddana aan cadawgii ka qabinay cadawgii ka duulay inuu anagana aflagaaday maxaa uu leeyahay maxaa loo baahay namada soo karti ya dalkeena waa ilaashanina meesha adduunku isku haya waa meesheena meesha khayraadku waa dalkeena nabadaan haysana maanta geeska way ku yartay ya caalam islaamka aynu isjeclaano wanaaga isfarno markaasina wax iska raxmadu naga iman doontaa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka insha Allah ta'ala kaasina ku xukumi doonaa tawxiidkeenu abaan ku ballan qaadnay ayaynu ku xukumi doonaa insha Allah ta'ala